gobolka Banaadir moogtahay inuu yahay gobol ay maalinkiiba ku dhintaan isku celcelis 5 qof oo Soomaali ah. gobolka Banaadir waxa runta ugu muhiimsan siyaasadda dhaqaalaha iyo bulsho ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waa gobol ay ku taala caasimada dalka isla markaana ah halbowlaha isku haya dawladnimada, ganacsiga iyo xiriirka Soomaaliya la leedahay dunida inteeda kale. Banaadir wuxuu door lama huraana ka ciyaaraa jihaynta mustaqbalka dalka maadaama uu yahay xarunta go'aan qaadashada iyo isu socodka qaranka. gobolku waxa uu ku yaalaa xeebta koonfur bari ee Soomaaliya, wuxuu si toos ah ugu teedsan yahay badweynta Hindiya, taa oo ka dhigaysa marin istiraatiiji ah oo isku xidha geeska Afrika, bariga dhexe iyo suuqyada caalamka. gobolka Banaadir waa gobol gaar ah marka loo eego qaab dhismeedka dalka maadaama uu leeyahay baaxadda dhuleed ee ugu kooban ee gobolada dalka oo dhan, si buuxdana u yahay degmo magaalo weyn ah, urban region ku fidsan yahay xeeb dhererkeedu gaaraya ku dhawaad 100 kilomitir. inkasta oo dhul ahaan uu yar yahay, Banaadir waa gobolka ugu cufnaanta badan, dadka ugu badanna ay ku nool yihiin guud ahaan Soomaaliya. tirada dadka gobolka Banaadir ku nool waxaa lagu qiyaasaa 2.5 ilaa 3.5 milyan oo qof, iyada oo ay ku nool yihiin dadka kala yimaaday dhammaan gobolada Soomaaliya, barakacyaal gudaha ah, IDPs, ganacsato, aqoon-yahano iyo shaqaale dawladeed. Banaadir waa meesha ugu badan ay ku kulmaan qabaa'ilka, afafka hoosaadka ee lahjadaha Soomaaliga iyo dhaqamada Soomaalida, taas oo ka dhigaysa muraayad bulsho oo dalka Soomaaliya laga dheehdo. gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho waxay leedahay taariikh fac weyn. Muqdisho waxay ahayd degad ganacsi oo caan ah tan iyo qarnigii 10aad, xiriirna la lahayd Carabta, Farisiinta, Hindida iyo bariga Afrika. qarniyo badan waxay ahayd xarun Islaami ah, ganacsi iyo aqoon lagu soo horto. xilligii gumaystaha, Banaadir waxa uu ahaa xarunta maamulka Talyaaniga 1960 kadibna waxa uu noqday caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. taariikh ahaan, Banaadir waa wadnaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee qaranka Soomaaliya. gobolka Banaadir wuxuu ka kooban yahay 17 degmo, kuwaas oo ay ka mid yihiin ama aan ka xusi karo Xamar Weyne, Xamar Jajab, Hoodan, Howlwadaag, Wadajir, Yaaqshiid, Dayniile, Kaxda, Dharkeenley, Shangaani iyo Warta Nabadda. degmooyinkani waxaa ku dhex yaala xarumo ganacsi, deegaan iyo guryo iyo adeegyo dawladeed oo dhammaystiran. Banaadir wuxuu leeyahay cimilo kulul oo xeebta ay u soo jiidayso, heerkul joogto ah oo sanadka oo dhan ah, roobab xilliyada guga iyo dayrta, iyo roob ayada gaar u ah oo la yiraahdo xagaayo oo Soomaaliya meelaha kale ka da'ay. dhaqaalaha gobolka Banaadir waa kan ugu weyn guud ahaan dhaqaalaha dalka Soomaaliya, waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga guud iyo suuqyada waaweyn ee xaamiga ah ee Muqdisho. dekedda Muqdisho ee ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta, adeegyada maaliyadeed, isgaarsiineed iyo xawaaladaha, kalluumaysiga iyo ganacsiga badda, shaqooyinka dawladda iyo hay'adaha caalamiga. Banaadir waa xudunta dhaqaalaha Soomaaliya, halkaas oo ay ka socoto inta badan wareegga lacagta ee dalka. gobolka Banaadir wuxuu wajahaa caqabado amni, teer iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. mararka qaarna wuxuu wajahay duulimaad shisheeyuhu soo qaadeen, gaar ahaan kii Tigreegu ku qabsadeen 2006. culayska ka dhashay kororka dadka, baahi kaabayaasha ah, wadooyinka, biyaha, nadaafadda, dhammaantood waa ay hooseeyaan. si kastaba, waa gobol ay ka socdaan isbeddello amni iyo dib u dhiska ugu muunada weyn marka loo eego meelo badan oo dalka ka mid ah. gobolka Banaadir wuxuu leeyahay fursado waaweyn, gaar ahaan xeebtan istiraatiijiga ah ee Ilaahay ku sameeyay, taasoo laga samayn karayo horumar aad u weyn, awood dhaqaale iyo mid bini'aadanimo oo ballaaran, fursado maalgashi gudaha iyo dibaddaba. doorka hogaamineed ee dawlad dhiska Soomaaliya ayuu gobolka Banaadir door weyn ku leeyahay.